kulan wacan daawadayaal kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno macalin Abshir Fitness waa macalin Soomaaliyeed oo sida online-ka ah uga shaqeeyo dadka u baahan jirdhiska haddii aan lahayd miisaanka la kordhinayo ama la dhimayo iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la xiriira ee jirdhiska ama qurxinta jirka. Macalinka waxaan ku kulanay magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. hal sir idin sheega oo ah aniga xataa maalmaha dhismaha ugu socdo marka wixii ka dambeeyo waa arki doontaa wax iska kay bedelo. macalin soo dhawow sharaf ay tahay inaan kula kulmo. intaas kadib dadka Soomaalida oo dadka ugu badan ee la yiraahdo cunista aad ugu badan waan dadka ugu badan ee baahida u qabo in jirkooda ay dhisaan. mararka qaarkood dumarku markay ragga la hadlayaan waxa saaway waxay yiraahdaan six pack soo yeela ama soo dhis marka baahi badan ragga qaarkood u qabaan oo aniga ku jiro. marka laga hadlayo horta jirdhis faahfaahin yar oo kooban naga sii. waa mahadsan tahay waan ku faraxsanahay maanta inaan waraysigan kula yeesho sidoo kale waa salaamaya dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkaaga. jirdhis markaan dhahno waxaa jira qofba hadaf uu leeyahay. qof waa cayilan yahay wuxuu rabaa inuu miisaanka iska rido jirkiisana uu dhiso. qofna waa caato wuxuu rabaa miisaankiisa inuu ziyaadiyo. anigoo kale hadda markii aan يعني سفركيga aan ka hadlo waxa ka soo bilaaba qof caata ah ka soo bilaabay gymka markii ugu horeysay waxa ahaa 50 kilo meelahaas ma sha Allah hadana adiga 70 iyo dhowr ahay marka Soomaali ahaan waa iska garanaysaa cuntooyinka aan cunno waxa waaye baastada canjeerada bariiska yani jirka sidiisa waxa koriyo horta waxa loo yaqaan proteinka waxa laga helaa cuntooyin badan sida ukunta waxa laga helaa dhamaan nooca hilibka uu leeyahay sida chickenka malaayga hilibka lo'da kangeela hilib kasta Soomaaliya sa ogtahay saxanka yani boqolkiiba 90 ama 99 bariisa ka buuxa hilib wax yar ka saaran taasa keenayso in oo qof kasta caloosha bis oo ka koro oo jirkiisana kori waayo because wax jirka korinayo ma cunayaba waxa la bariiska caloosha fadhiisana bariiska horta cilada kaliya maahan ee waxa ka qaad inta ka qaadanaysid waayo hadii aad bariis kaligiis badan aad cuntid bariiska sidiisa carbohydrate waayo carbohydrate-ka jirka yani energy ahaan u isticmaalaa tamar ahaan marka waxa dhacdo marka qofkii oo shaqadiisa oo inta badan wax adag ka shaqeynayna ma xafiis fadhiyo kale ama inta badan fadhi ay tahay shaqadiisa bariis aad u badan oo cunaya taas marka waxay keenaysaa jirki uma baahna marka carbohydrate-ka tirada badan uma baahna wixii soo haray in la kaydiyo oo kiliyaha iyo calooshii loo kaydiyo maanaysa marka waa sidaas waayahay laba mid aan kala qaadi doonaa waxaa ka hadashay miisaan kordhinta iyo miisaan dhimista shaqada online waaye sidee qofka miisaan dhimis u baahan loogala shaqeeyaa in jirkiisa miisaanka u dhimo mesela oo kale Ankara joogtaa dadka ugu badan Soomaaliya kula soo xiriirto oo aad macalin u tahay marka sidee isku waafajiyaa hawshaas waxa jir gym ila tagaaya mise sirta noo sheeg waa mahadsan tahay aniga horta waxaa jiro arday badan aan leeyahay oo meelo kala duwan joogaan Muqdisho Hargeysa xataa qaarkood waxay joogaan wadanka dibadiisa ma sha Allah marka qaab online ahaan kula shaqeeya waxaa jiro qofka su'aalo aan weydiinayo oo adiga 10 su'aal ka kooban aan ku ogaanayo wuxuu u baahan yahay kadib waxaan u dajinayaa jadwal cunto ama diet plan waxa loo yaqaano iyo sidoo kale workout plan jadwal gym u dajinayaa oo ku xiran baahidiisa marka waxaa loo qorayaa qofka gram cayiman yani cunto cayiman loo qorayaa marka cuntadaas marka sidaan anigu u qoro uu qaato jimicsiyada aan u qorayna uu sameeyo marka caadi uu isbedelaya qofka isbedel fiican ay sameeyaan xataa ardaydeeda ma sha Allah marka hadda qof midalan oo kale taas diet planning waa qofka rabo inuu miisaankiisa kordhiyo iyana see loo sameeyaa diet plan-ka laba loo kala qaadaa mid waxa la yiraahdaa weight gain diet plan midna weight loss diet plan marka qofka oo jirkiisa kordhinayo kala weight gain diet plan loo sameeynaya sidoo kale asagana jadwal oo bir ah loo qorayaa birta inuu qaado marka cuntadaas loo qoray oo markuu cuno oo birtana qaado asagana uu koraa jirkiisa yani murqihiisa dhismayaan dadka ka waran marka gym isaga ordo oo dhahayan waa isdhisaa qasaaraha uu leeyahay ka waran qofka asagoo qorshaha daashayta loo sameeynin in iska tago gym bir qaadis u bilaabo horta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan oo dhalinyaro badan yani niyadjabka ku keeno qofka gymka inuu iska tago asagoo wax qorshe lahayn oo meelo ka bilaabo garanaynin wuu tagayaa kanuu sameynaa guriga imaanaa wuxuu rabo iska cunaa soo bil laba bil markuu natiijo waayo wuu ka qowsanaa hadhow wuxuu ku dhahayaa warar Soomaalida ma dhismatay gymka iga daa marka ciladaas keenaysa way wanaagsan tahay in qofka qorshe leeyahay mas'uuliyadda askala marka qofka qorshe la'aan ma shaqeeyo si fiican waa inaad trainer leedahay waa inaad jadwal leedahay diet plan iyo workout plan inuu leeyahay qofka muhiim waaye waayahay hal su'aal kale jirto qofka Soomaaliya jooga ama qofka dibadda joogo
maadaama wadamo kale cimilo ah iyo de kala dhaqan ah la joogo cunooyinka lagu kala duwan yahay ma waxaa ku beesgaraysaa qof walba maasha uu joogo cunada laga helayo mise cuno caadi a jirto qofka inuu raadsado ay qasab ay ku tahay maya aniga qofka muhiimadda waxay tahay qofka in jadwalka u qoro uu raaci karo marka cuntadii aan u qoro hadduuba heli karin waxba ma kasoo baxayaan marka qofka Soomaaliya jooga si gooni ah ula shaqeeya waxa waa ogahay aniga Soomaaliya mar hore ka iman mar dhawa ka iman cuntooyinka oo laga helayo waa la socdaa marka cunto asagana halkaas ka heli kara u qoraa qofkan kalena cunto heli kara u qoraa qaabkaas sameeyaan marka waxaa jira dadka feedback ay kugu soo celiyaan oo wixii iska bedelay si fiican feedback waxaa jira WhatsApp group aan leenahay oo team Abshir Fitness la dhaho oo dhammaan update ka cuntooyinka maalinkaas qaadanayaan wixii iska bedelay ay soo diraan maantadan u dambeysay gabar ay la soo hadlaysay oo afar week ka hor u bilaabay diet-ka waxay ahayd 131 kilo 121 kilo noqotay hadda bil iyo maalmo yar waxa uga dhacay 9 kilo iyo bar ma sha Allah sidoo kale Instagram-kayga asxaabtada way arki karaan Abshir Fitness waxa way sawirro badan oo before and after buuxo client wins meel la dhaha ku jiro oo update badan oo ku jiraan taasa muujinaysa yani in uu qofka natiijo u sameeyo wayahay isla taasaan raacina macalinka aniga diet aan la qoray maalmahan shafkeena tafi waa dhismooya marka taas waxay keentay in wixii la qoraa aan jadwalka u raacay gymka sidii loogu talagalay aan u raacay markii jadwal aan leedahay macallin waxaan ka marqaati kacaa oo diet-ka plan-kan aan raacdid in isbedel arkaysid saacadda ka dambeyso maalinta ka dambeyso marka before and after teedina way soo socotaan leeyahay yes ninkan waa arki doontiin mar dhow before and after kiisa hadda waxaa hawsha waa bilaabnay waa wadeena insha Allah mar dhow waxaa soo dhigi doona 6 baggies kanaalku soo dhigaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadku WhatsApp noocyada kula soo xiriiraan ma waxaa jira waqtiyo gaar oo lagula soo xiriirayo ma waqti walba available ah tahay sidee waxaa jira horta qofka markii uu rabo inuu ila soo xiriiro profile-kayga markuu garo Instagram-ka linkiga ku jiro linkigaas qofka markuu toos ugu dhufto WhatsApp-kayga imaanaya toos yani chat-ka u furmaayo meeshaas uu igala soo xiriiri karaa si wanaagsan adiga habeenka xilliga la hurdo maahane inta kale waxa waa available ah qof kasta oo ila soo hadlo oo jawaaba marka meeshaas qof kasta igala soo xiriiri karaa wayahay ugu dambeyntii Soomaalida dadka ugu badan waxa la yiraahdaa caloosha leh oo miisaankoodu aad u badan yahay waaye talooyinka aad soo jeedinaysid maxay tahay iyo waxa aad ka baratay horta qofka calool leh waxaan u soo jeedinayaa cilada koowaad ee laga haysto gym maahan waxa waaye cilada koowaad cuntada waa si wanaagsan waayo haddii aad gymka tagto xataa soo dadaashid oo cuntadaada ay qaldan tahay natiijo fiican ma arkaysid marka waxaan kula talin lahaa qof inuu helo maybe aniga maybe qof kale adiga muhiimadda waxay tahay in cuntada laga saxo sidoo kale calaamidadana laga saxo markaas waxaa noqonaysaa yani nin mar walba horumar sameynayo niyad jabna ma arkaysid because mar walba waxaa ku caawinayo coachkaaga ku caawinayo mar walba yani isbedel arkaysa isaga ku joogo si wanaagsan marka waxaan dhihi lahaa cuntada hala saxo kadib natiijadu ay imaanaysaa waayahay macal Abshir aad buu mahadsan yahay sharaf inoo tahay wareysigan gaarka aan la yeelanay lambarkiisa lagala soo xiriirayo iyo habka ula macaamileysaan waxaan rajeynayaa inaad macalinka aad la soo xiriirtaan haddii aad sii sheegataan in xaggayga laga yimid discount iyo dabcan waxaa heli doontaan fiiro gaar ah channelkiisana halkaan soo dhigi doona hadduu ilaahay idmo qaybta hoose ee commentiga YouTube-ka Instagram-ka iyo macluumaadkiisa dhan halkaas kusoo tixi doona inta ka horeyso waxaan idin leenahay jirdhis wanaagsan thank you very much sidoo kale macallin